Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maalin wanaagsan akhyaarta wada nagala xiriirtay halkan waa barta YouTube ku leenahay ood maalin walba nagala dhegeysataan. Maantana waxaan kusoo qaadan doonaa maamulka gobolka Banaadir oo waxaa la leeyahay saddexdii bil ee lasoo dhaafay ee dowladda cusub ee jirto wax mushaaraad ah muusan bixin. Marka Cumar Finish ayaa lagu eedeynayaa inuusan bixinin mushaaraadka shaqaalaha dowladda hoose muddo 3 bilood ah, Agoosto iyo 2 bilood ka horeysay, July iyo June wax lacaga maysan helin. Madaxweyne xasan sheekh maxamuudna waxaa la doortay June 15keedii, waxaa la doortay May 15keedii ayaa la doortay. Marka June waxba may helin, Julyna waxba maysan helin, Agoosto hadda lagu jirana waxba maysan helin. Saddexda bilba shaqaalaha bulshada rayidka iyo shaqaalaha ururada maxaa la yirahdaa dowladda hoose oo dhanba wax lacag ay heleen ma jiraan. Maamulka gobolka Banaadir waxaa la rajeynayaa in hadda maalmaha soo socdo xilka laga qaadi doono Cumar Finish. Marka lama oga inuu asaga dhankiisa ay ka imaaday oo asagii lacagta si gaar ah u leexsaday iyo in cilado kale ay jirta lama oga. Laakiin dadka waxay leeyihiin Cumar Finish asaga uu talagalay, sababtoo ah xilka in laga qaada ayuu ogyahay. Marka dhaqaalihii mushaaraadka shaqaalaha la siin jiro oo dhanba uu leexsaday. Marka dadku way yaaban yihiin, waxay leeyihiin 3 bilood bis ay dowlad jirtaa, 3 biloodna shaqaalihii gobolka Banaadir ka shaqeynaya oo dowladda hoose dhan u shaqeynaya, canshuuraadka soo aruuriyo, dekedda meel kasta canshuuraadka shacabka, suuqa bakaaraha, wax alla wixii dakhliga soo galo dhanba waxba kama gaaraan shaqaalaha dowladda hoose. Waa la yaab. Marka Cumar Finish eedaas ayaa dusha ka saaran. Marka in xilka uusan sii hayn doonin wuu ogyahay. Marka shacabka Soomaaliya waxay ku dhaliilayaan maadaama xilka uusan sii hayn doonin wuu ogyahay in laga qaadayo inuu canshuuraadka iyo wixii hore u leexsaday. Hadda kahor waxaa isku dhacay Cumar Finish iyo gudoomiye ku-xigeenka dhanka maaliyadda ah oo asagana hadda kahor wuxuu dhahay lacaga dhaqaale ay isku qabsadeen. Marka Cumar Finish wuxuu dhahay maadaama aniga dhanka maaliyadda aan ahay gudoomiyaha ku-xigeenka dhanka maaliyadda, wuxuu dhahay maadaama aniga aan ahay gudoomiye ku-xigeenka dhanka maaliyadda, maadaama aniga soo marayso warqad saxiix waa in la helaa. Marka wax suuragal ah ma jiro. Marka Cumar Finish hadda kahor waxay isku qabsadeen in dhaqaalaha maaliyadda ee gobolka Banaadir uu asaga si toos ah bangiga uga dalbado. Gudoomiye ku-xigeenka dhanka maaliyaddana wuu diiday, wuxuu dhahay lacag si sharci darro ah loo bixinaa ma jirto. Dhowr mar ayay isqabsadeen. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa loo wada tegey. Marka loo wada tegayna waxaa la dhahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu dhahay saan macquul maaha. Marka ninka dhanka maaliyadda qaabilsan wuxuu sheegay waa sax, warqad caddeyn ah oo saxiixa ayaa loo baahan yahay. Gudoomiye ku-xigeenka dhanka maaliyaddana lacag asaga uusan ogeyn ma bixi karto. Marka wuxuu dhahay lacagihii shaqaalaha ma aha tii oo la bixin jiray, maaha, maxaa lagu qaadaya uu dhahay lacagahaas iyo warqadahan socdo aniga ma yeeli karo mana saxiixayo. Marka dhowr mar ay isqabsadeen. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu dhahay ninka maaliyadda wuu saxsan yahay mana la bedelayo. Laakiin Cumar Finish waxaa lagu dhahay adiga aan fariisanayna. Dhowr mar ay fariisteen, waxaa lagu dhahay nin waxyaabaha qaladka jooji. Marka Cumar Finish waa nin iska mareen ahaan jiray 20 sano lasoo dhaafay oo iska naqaana. Booskana wuxuu ku helay qaab qabiil ayuu ku helay. Dadkana way eedeynayaan, aad ay ugu eedeynayaan. Waxay leeyihiin dad fara badan oo mushaar la'aan uu dhigay oo aad uga cabanayo Cumar Finish. Haddana waxaa la leeyahay tii corruption-kii uu ku hayay dowladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayuu weli wadaa. Weli dowladdan xilka kamaysan qaadin, uma soo jeesanin. Laakiin waxaa la leeyahay 2 isbuuc ee hadda soo socoto Cumar Finish kuma yaqaano. Marka dad waxay saadaalinayaan in Mungaab loo dhiibi doono. Gudoomiyihii hore gobolka Banaadir duqan magaalada Muqdisho ahaan jiray Maxamed Xuseen Mungaab. Marka marna ahaan jiray maxkamadaha la shaqeyn jiray ciidamada. Marka hadda waxaa la leeyahay Cumar Finish kuma yaqaano. 3 bilood lasoo dhaafay ee dowladda ninka xasan sheekh maxamuud ay jirtana wax mushaaraad muusan bixinin. Shaqaalaha dowladda hoose way badan yihiin, aad ay u badan yihiin oo gobolka Banaadir ka shaqeeya. Marka haddii aad aragtid dhowr kun oo shaqaale aan lacagahoodii helin, mushaaraadkoodii helin, wax sahlan ma aha. Marka waxaa la leeyahay ugu dambeyn maalmaha soo socda Cumar Finish kuma yaqaano, waa la bedelayaa. Maadaama markii la bedelo ayaan ogaan doonaa. Inkastoo corruption-ka magaalada Muqdisho uu iska batayba oo isla xisaabtan fara badan uusan jirin, dowladdana howlo kale iyo xil magacaabid iyo wax kala wareejin ay ku mashquulsan tahay xagga amniga oo faraha ka baxay. Marka haddii aan taas ka gudubno, wixii halkaas kasoo kordho mushaar la'aantaas iyo gobolka Banaadir dib ayaan isugu soo laaban doonaa insha Allah. Marka haddana waxaan u wareegaynaa Xamse Cabdi Barre oo ah ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Soomaaliya ayaa wuxuu dhahay Hotel Xayaat weerarka lagu qaaday aad iyo uga xunahay. Dadka shacabka ku dhibaatoobayna Ilaahay ha u naxariisto, oo intii dhimatay intii noolna Ilaahay ha caafiyo. Marka wuxuu ballan qaaday maadaama ay dhibaato soo gaartay dadka shacabka isbitaalaad ku jiro, wuxuu wareystay xog wareystay isbitaalaadka Erdogan oo Digfaar iyo Madiina, labada isbitaal ugu badan oo qaabilo dadka dhaawacyada soo gaareen waaye. Marka wuxuu dhahay waxaan rabnaa inaan ogaadno dhaawacyadii markii looga xog warramay loo sheegay xalka wax marayaan, dadka aan waxba looga qaban karin waddanka gudihiisa, dadka wax loo qaban karo kulli waa loo kala bayaaniyey. Markii dambe wuxuu dhahay dadka aan waxba looga qaban karin gudaha waa inaan dibadda u qaadnaa. Wadamada Turkiga iyo Qatar in loo qaadi doono ay u badan tahay dadka dhibaatada qaba oo arrimaha u baahan dibadda caafimaad uga baahan.
wuxuu kaloo dhahay dad hore oo caafimaad u baahnaay oo dibadda u baahnaay hadday jiraanna waan qaadi doonaa. Wuxuu kaloo ballan qaaday xagga amniga. Wuxuu dhahay xagga amniga maadaama dhibaato fara badan ay ka dhacday, hotel Xayaat la weeraray, muddo dhowr maalin lagu jiray, wax loo adkeysan karo ma aha. Marka wuxuu dhahay waxaan sameyn doonaa isbeddel, waxaana la xisaabtami doonaa uu dhahay hay-adihii amniga ee halkaas ku shaqada lahaa ee dayacay hawshoodii. Dib ayaan arrinta u baari doonaa, qaabka waxaan ku dhaceen waan baari doonaa. Marka ballanqaad fara badan sheegna wuu sameeyey, laakiin waa wax hore loo arki jiray. Waxaa leeyahay dadkii meesha soo weeraray, shabaabka soo weeraray hotel Xayaat, waxaa leeyahay qaarkood ayagoo nabad qabayba ka baxeenba. Marka ciidamo ku hareersanay meesha difaac uga jiray oo ka dagaalamayay, markii dambe waxaa lagu leeyahay intay soo degeen iska baxeen lagu leeyahay. Marka waa wax la yaab leh, waxaas wax dowladnimo ay ka jira ma lahan. Dowladdii hore Maxamed Abdullaahi Farmaajona wadahadal ay ku bixi jireen lahaaba xoogaa qarashaad inta la sii aldhi jiray waraah, xaaladdu waa adkaatay waana isku xakarinahay, xogaagiina qaata wadana waa lidin furaa iska baxa. Haddana waxaa leeyahay sidoo kale lacag waxba lagama hadlin, laakiin waxaa la dhahay markii hawshooda dhammaysteen dantooda ay guteen ayagaa iska dego 2 jeer inta ka baxeen way iska baxeenba aduu meel u raac. Marka wax dadaal ah iyo wax firfircooni ah iyo wax isku xirnaana ma jirto. Soomaaliya xaaladeedu waa isku cakirin. Qofka ku dilaya qofku dhaafayo ma taqaanid, qofka wanaagga waday qofka xumaantooda ma taqaanid. Maanta saakadana aan kula hadlayo, waxaan aaday meel aan kubad u aaday oo isheeg aan kusoo ciyaaray. Marka waa laisku shubay halkii saac oo rubi dhima mise 20 dhimana laisku shubay dhankan. Maxaa la dhahay dekada dhankeeda hal mar iskaga dhacday xabad waaweyn. Marka meeshu amni ma dhihi karo. Waxaa lagu leeyahay 2 ciidan kala shakisay oo isdab saaray. Marka ciidamadii dowladda kala shakinayo xabad beerka iska gelinaya. Marka xaalka siduu ku socdo Soomaaliya xaaladeedu waa halis. Wanaagna hadda kama muuqdo. Dowlad markay imaado waxaa ku xumeynaya dowladda, dadka kale oo dowladda aan ka mid ahayn ayaa ku xumeynayo, xagga amni darrada ka qayb qaadanayaan, xagga ceebeynta ka qayb qaadanayaan. Dowladda Maxamed Abdullaahi Farmaajo markay jirto ogeed sida loogu dhagnaa oo la dhihi jiray waxba ma hayaan, amniga ma sugaan, dhibaato ayay ku hayaan. Dad bay xireen, intay ka dhaceen hebel bay dileen, gabaraa la afduubay, ishay qalbi dhagax la dhiibay, waxyaabo fara badan la sheegay oo maalin walba eedda iyo barnaamijkooda daba socday. Hadda dowlad kale imaaday waxaa la leeyahay xagga amniga way ka seexatay, mushaaraadkii ma lahan, ishay dhaqaaq fiican ma jiro, dowladda iskuma xirno, ciidamadii waa kaa duurka ku jiraan oo waxaa waaye wanaag fara badan ma haystaan. Waxan iyo dowlad walba imaadaba eedaa la daba taagan yahay. Ayadana waxaa waaye kala tafaraaruq iyo amni waxaa waaye isheeg ma qabsan karto. Marka waxaa la sameynaa dowladdii imaado, qolooyinkii kale oo hore ka horreeyey iyo kuwii kasii horreeyey iyo kuwii kasii horreeyey iyo kuwa hadda diidan maamulkan qaabka u shaqeynaya intaba way isbiirsanayaan. Waxay sameynayaan marka dowladdan si lagu fashili lahaa. Marka haddiiba shacabka Soomaaliyeed iyo dowladdoodii iyo wixii isku xirnaan lahaayeen, haddii dowladda imaadaba dowladda kale ay fashilinayso ama ragga hore mas'uuliyiinta xilka laga qaaday, wasiiradii hore, ra'iisul wasaarihii hore, madaxweynayaashii hore, haddii kuwa dambe oo imaaday ay fashilinayaan, kuwan hadda joogana beri markay xil qabtaan ayagana saas oo kale loo fashilinayo, weligeed Soomaaliya horumar ma gaarayso. Marka hebel ku xumaysa haddaad tiraahdo maalin walba waxbaan ku xumeynaa oo dhibaato geysana wax horumar oo la gaaraya ma lahan. Soomaaliya saan dan uguma jirto. Ilaahay Soomaalida dhibaatada ha ka saaro. Dad isku qalbiyo isku uur ah ummadda Soomaaliyeed u naxariisanayo oo dadnimadooda iyo dowladnimadooda ka fikiraya wadaniyiin ah Ilaahay ha sahlo. Laakiin xaalka intuu sidan yahay Soomaaliya weji uma lahan. Isku xumays iyo hebel asaan iyo maxaa ay galay dhiig islaam inaa wax ku raadiso waxba ma tarayso. Soomaaliya dhiig islaam inaa wax ku raadiso dhahday anaa maanta haddaan aniga ahayn wax kala soconayo ma leh, ama dadkan waa dila ama dhibaatadan geysana ama sida ani heer u gaaro dadaan u leynaa haddaad dhahdo weligaa horumar ma gaaraysid. Ilaahay ummadda Soomaaliyeed jid iyo jaha ha u furo, dhibaatadan ha ka dul qaado. Shacabka Soomaaliyeed idinkuna mahadsantihiin la socodkiina barnaamijkeenan YouTube-keena subscribe iyo like share nala wadaaga. Intaas ka dambeysana wixii akhbaaraad iyo wixii war nagu soo kordho insha Allah maadaama magaalada Muqdisho aan ku suganahay waa idin soo gudbin doonaa. Tan iyo kulantadan dambe xiiso leh, sidaas iyo nabadgelyo.